Saaxiibada aad leedahay waxay u kala baxaan saddex nooc: kuwa ku caawiya wakhtiga aad dhibka ku jirto, kuwa kaa taga xilliga dhibaatada ku hayso, iyo kuwa iyaga ku geliya dhibka aad ku jirto. Qaybta ugu wanaagsan noloshu waa markii qoyskaadu kuu fahmaan sidii saaxiibadaada, saaxiibadaaduna ay kuu taageeraan sidii qoyskaada oo kale. Saaxiibada beenta ah waa sida harka ama hooska oo kale, had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha mugdiga ama dhibka aad ku jirto. Inaad daacad ahaato kuma helaysid saaxiibo badan, balse waxaad ku helaysaa saaxiibo run ah. Marnaba ha ku xulan saaxiib adigoon si fiican u fahmin, sidoo kale marnaba ha ku waayin saaxiib si fahan darro ah ama muran yar. Saaxiib waxaa ugu wanaagsan qofka Alle ku xasuusiya, khayrkana kula jeclaada, marnaba aan dembi kuu horseedin ama aan kuugu yeerin. Iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay inaad la socoto ama aad wax badan ag joogto. Ogow, saaxiibada noocaasi ah inay kaligood dhintaan ma jecla, ee waxay doonayaan inaad la dhimato. Markii aad aragto kuwaasi oo kale, ka carar oo ku soco waddadaada gooniga ah. Haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada ama cidlada, hadda ka cabso inay saaxiib kuu noqdaan kuwa xun. Qof kasta wuu kuu imaan karaa xilliga aad faraxsan tahay ama aad guulaysatay, laakiin kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad jabsan tahay ama fashilku soo gaaro, kuwaas ayaa ah saaxiibada runta ah. Saaxiibka dhabta ah wuxuu xaqiiqdii ku yahay hantidaada nolosha. Si daacadnimo ayay kuu saxaan, kuu hagaan, kuna taageeraan. Wehelkoodu wuxuu ku xasuusinayaa inaadan marnaba kali ku ahayn dunidani.